xafladan oo ka qayb ahayd soo dhaweynta musharax Axmed Xuseen Soomaali ayaa galabta ka dhacday degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag waxaana ka soo qayb galay bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana markaasi musharax Axmed Xuseen Soomaali tixda suugaanta ku amaanay haweenkii ka soo qayb galay munaasabada markaasi lagu maamusay soo dhaweynta musharax Axmed Xuseen Soomaali halka ay odayaasha iyo waxgaradka iyo waliba dadka deegaanku ay markaasi ayagu soo dhaweeyeen amaaneenna waxqabadkii intuu uu ka shaqeynayay agaasimaha baarlamaanka dawladda Puntland uu markaasi bulshada reer Sanaag u qabtay ayay ku amaaneen isna uu markaasi uga mahadceliyay badanna oo farabadanna waanu leeyahay ku wada noolay markaan ahaan ka hadlo haddana meesha horteedo amaan fara badan iyo magac badan iyo sumcad badan buu ku leeyahay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa uga baryaynaa tan hadda maanta laga doonayana ilaahay ku guuleeyo ilaahay ku guuleeyo aamin dhahaya waanu ku barayso maaha waa ku fariisinay markii waa la sheegay hore Axmed waa inuu ku yimid musharaxu hadafkeeni maanta si ficil iyo qowlba waa muujinay hadaynu ceel boonahay maanta sidii iyo si ka sii fiican baynu ficilkeena iyo qowlkeena u muujinay hadda waxaan u malaynayaa inay warbixin intaas nin walba ugu filan tahay marka Axmed aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa codkana u siinay inta yaraadu ay tahay ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inaad ka qoonaysato ilaahay inuu kugu guuleeyo oo kugu nabadgeliyo waxaa lagu kursiga marka hore waa la doonaa mar labaadkana goorta la tago waxaa la doonaa in ilaahay kugu nabadgeliyo ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa ilaahay inuu kugeeyo kugu nabadgeliyo intaa kadib waxaan leenahay annagu waxaanu nahay Soomaali halka waxaa fadhiya dad Soomaaliyeed oo cid walba leh qoys maaha reer maaha cid walba way fadhidaa waxaana degmada Ceelbu cid kastana way joogtaa gobol Sanaag ka tirsan xafladan lagu maamusayo oo lagu soo dhaweynayo Axmed Xuseen Maxamed Saalax waxaan u malaynayaa Axmed barasho oo baan u yiri dayaxnuur oo baahna dabilays ma baahna dayaxnuur oo baahna Axmed waa nin dadka yaqaana dadka aan ahayn dadka kiisa yani xagga sare ah dadka hoos iyo korba u yaqaan runtii Axmedna reer Ceelbu isagama horeysa ama dadka madaqada ah uu ka dhashay hadii ilaahay ku roon yahay hadii uu garooway meelaha shaqo ka hayna uu imanayo oo soo noqonayay wax qabad marka la yiraahdo dadku waxay adduunka ku tartamaan wax qabad marka wax qabad la yiraahdana kulli anigu sidaan u aqaano dadka ugu jilicsan buu ka bilaabay wax qabad dhamaanteen marka aan ugu ducayno maadaama uu dadka ugu jilicsan ka bilaabay oo ah qoys dan yara oo aan lahayn qof dhaamin ayuu u kiray ma ayna dadkeena intaas ayna kama xigo dadkan halka fadhiya majoritigiisa kama xigo oo roobka meel ay ka dugsadaan aan lahayn muddo dhowr sano wuxuu kiray guri salaanka bacdi waxyaalaha kale waxa meesha isku yimid waa soo dhaweyn Axmed Xuseen horena waa uga warhaynaa waa inoo yimi golahan oo kale iyo mid ka sii weyn baynu ku soo dhaweynay sidii si la midaba maanta aynu soo dhaweynay una soo dhaweynay maadaama tii hore la soo dhaweeyay tan waa maadaama muddo ka dambeysay waa jadiidin Soomaali la salaamo inta ugu horeysa أنا أتمنى أن أقول أنا غفور وأنا نجام لا تذكر ولا تبتعد عن هذا الصراحة ولا يمكن أن أقول ولا دوسر ومناد ولا دوسر وطهر ولا قال يطلق وطيت أفرع الله يوفقه المسؤول تعالوا الله يوفقه كم إلهي كنا نفقده وسوى الله يوفقه محمد بانو كسو دويني وارو كسو دوينينا
وانا hambaliyada hambaliyo wawlan waan ku soo dhaweynay waanuna kursiga isaga ah oo ummadda ka dhaxaya faraha badan ka dhaxaya oo Axmed Xuseen uu doorayo baanu u dooranay annaga oo ka mid ah ummadda leh macna salaam waxay la tahay badan baa waxa la sheegay oo dadku waxay yiraahdeen Axmed Xuseen Soomaali waana qaan anigu Axmed Xuseen Soomaali maanta iga koowa laakiin magaciisa maqli waa nin magaciisu uu ku weyn yahay mantaqada taas waa ii guul oo waa ii sharaf maadaama aan maanta si aan daragtiya aan toos aan ugu arkay أحمد وقاشع مرهران فيها أحمد وقاشع كرسيان ودين الله ويقول ساكت سلام كايس كما فيري أحمد وادم كود دعايا إلى كدا يراري راس يقلب لا ساعة فاجنو وساعة بريقة إلى ساعة فدنو ساعة بفرني سلام بامكم ونا ساعة بفرني سلام بامكم ونا وواقوا لساعة إننا قدتون سلام كانوا سردون بحير لما تبكي والقربان نغلقوا بسوس وقتابنا يوكو تبردقين غيرك يحمل غلي شعب شريف وطنيا سعيد وكل حدا ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa soo gunaaday musharax Axmed Xuseen Soomaali oo bulshadii maanta dhan qoraxda u taagneed kuna soo dhaweysay hidaha iyo dhaqanka iyo waliba fardihii oo markaasi gaashaaman ayuu uga mahadceliyay waxqabadka la sheegayo ama xubinta baarlamaanka marka la leeyahay bulshada matalaysa wax kale maaha waxa weeye qof wakiilka ah qofkaasi wuxuu wakiilkaaga yahay waxbarashadii waxaan uga baanahay waa inuu cidda ay khusayso hordhigi karo ka doodi karo baahidaada geyn karo kaa turjumi karo oo ay la macno tahay adigii oo miiska fadhiyo waa inuu marka aad u baahan tahay biyo u baahan tahay waddankaaga biyo la'aani ka jirto baahi biyo jirto jiilaal jiro waa inuu ka jawaabi karo dawladda kaaga dhex qareemi karo hay-adaha ka shaqada la geyn karo baahidaada kana soo jawaabi karo si loo helo biyaha looga haqabeelo xildhibaankaynu u baahannahay waxa weeye mid u qareemi kara ogaan kara garan kara baahida caafimaad ayna haysa waxaynu u baahannahay oo ujeeddadaynu tahay waa kaa inaynu helno waxaan marka ku dardaarmaynaa codku maanta gacantaynu ku jiraa sidii aan saakaba u sheegnay waxa wax dooranayaana waa innaga sanduuqa warqadda aynu ku ridno waxa aynu ku ridnoba aynooga soo baxaya haddaynu ku ridno qof fadhiida waa waxba inoo qaban karayn oo isagu shaksiyaddiisa meesha u tegaya sanduuqa haddaynu ku ridanno yaynaan hadda u qoomamayn isagaa inooga soo baxaya haddaynu sanduuqaa ku ridno waraaqaha aynu ku ridno qofkii inagu matali karayay kartida u lahaa aqoonta u lahaa khibradda u lahaa jeclada ka qabay dadka iyo dalka dantiisana ka hormarinayay danka bulshadiisa kaa haddaynu ku ridanana kaasaa inooga soo baxaya ogaada walaalayaal bulshada sharafta leh ololaheennii hore oo aynu halka isugu nimi waxaynu kaga qayb qaadanaynay waxay ahayd waqti jiilaala oo la kulul yahay waxaynu ka qayb qaadanaynay biyo dhaamiska halkudhegeennu biyo hala dhaamiyo buu ahaa maanta halkudhega aynu isugu nimi
waxa weeye cusbitaalka aynu qabyo tirno waxa ugu muhiimsan oo aynu u baahannahay maanta waa caafimaadka haddaynaan u helin meeshii laynoogaga adeegi lahaa caafimaadka meeshii qalabka la dhigi lahaa meeshii dhakhtarku ku shaqayn lahaa meeshii dadka bukaanka ahi ay tegi lahaayeen oo lagu dawayn lahaa haddii aynaan helin caafimaad ma helayno sidaa awgeed waxaynu u baahannahay cusbitaalkii intii badnayd muhiimaddii waa inoo dhammaystiran tahay muhiimaddu maanta waxa weeye dayrka qabyada in lagu xidho kabacdina qalabkii aynu raadsanno kabacdina dhakhaatiirtii waynu helaynaa xirfadda lahay timaado uu sidaa inoogu shaqo galo war diyaar ma u nahay dayrkii sidaynu u wadnay oo iskaa wax u qabso iyo isxilqaankeennii inaynu dib u bilowno diyaar ma u nahay haddaynu diyaar u nahay 3 yoomiyadood oo lagu horeeya oo lagu howlgelayo aniga ayaa bilaabaya wixii kalena aanu kushan وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور دقمد علبه أقبل كسناك